waxaanu maanta qaadanaynaa cashirkeenii afraad sida kalena aynu idhaahnay cashirkeenii saddexaad marka loo eegayo tiirarka waxaan soo qaadanay autonomigii beneficigii maantana waxaan qaadanay waxa la idhaahdo pillar 3 ama tiirka saddexaad ee medical ethicska non malignancy ayaa la idhaahdaa non malignancy waxa weeyaan do no harm dhib ha u geysanin macnaheedu waxa weeyaan qofka patientka dhib ha u geysanin yacni waa ethicska pillarkiisa afraad waxaana muhiim ah qofku inaanu dhibaato la doonan qofka patientka marka sidii caadada inoo ahayd definition baynu u samayn jirnay waxaan sidoo kale ka bixin jirnay example si aynu concept ugu haysano waxa aynu dhiganayno ee soo socda non malignancy waxa weeyaan macnaheedu waa do no harming marka aynu ingiriis ahaan ku macnayno waxa weeyaan avoid the action that could harm the patient ka fogow action kasta dhacdo kasta shaqo kasta oo patientka harm to patient dhibaato u keenaysa qofka patientka example maxaa ah avoid the medication ka fogow ama ka durug dawo kasta that could cause severe side effect taasoo sababaysa side effect daran weliba when the suffering alternative is meesha markaas aad ka heli karto tusaale ahaan oo kale ayaa wax ama alternative kale ka heli karto ka fogow baa lagu leeyahay macnaha si adag baa lagula hadlayaa haddii aad qofka dhibaato la dooratana khatartiisa ayaad leedahay waxaa jira markaa component of non malignancy waxyaabaha uu ka kooban yahay inta badan ee la qadariyo ama waxyaabaha aynu ku dhiganayno cashirkeena wax ka mid ah avoid causing unnecessary harm ka fogow ama ka durug wax kasta oo unnecessary ah oo aan laga maarmaan ah oo aad ka maarmi karayso oo dhib ah ama safar ama dhibaato ah oo qofkan suffering ku mari karayo dhib ku mari karayo intentional harm dhibaatada bareerka ah marka qof kasta never inflicting harm deliberately ama deliberately waxay la micno tahay si bareera qofka ha ugu bareerin macnaha dhibaato ha ugu geysanin tusaalahaan oo kale maxaa weeyaan unnecessary procedure for the profit unnecessary waxaynu ka maarmi karno procedure aynu ka maarmi karayno adigu hala doono ha ka faa'iidin tusaalahaan lacagii wax ha uga faa'iidin waxaa jira qodob kale oo kasoo horjeeda oo la idhaahdo unintentional harm kaa hore intentional harm buu ahaa ku dhac buu ahaa yani waxaad u bareedha weeyaan kan waa waxaan u bareerin taasoo kale waxaa samayn kartaa mitigating risking of treatment yaree khatarta dawada ay leedahay tusaalahaan oo kale qofkan radiatory baa jira waxa la idhaahdo oo lagu daweeyo ama radiation baa qof lagu daweeyaa radiationkaasi saameyn buu qofka u keenaya exposing image tusaalahaan oo kale radiation imageka qofka marka x-rayga laga qaadayo haddaad ka yareyn karto qofka ka yaree ama uu ka maarmi karayo ka yaree macnaha hadduu ku noqnoqdo radiationka saameyn buu ku keeni karaa psychological harm in qofka maskaxaan u dhinto ama dhibaato uu ka gaaro tusaalahaan inaad ka fogaato dismissive attitude inuu qofkan cabusto causing cadaadiso falling dignity inaad dignitygiisa iyo sharaftiisa ku ciyaarto tusaalahaan oo kale ignoring the patient pain inaad iska ignore garayso oo iska dhaafto qofkii xanuunsanay waa psychological harm weeyaan qofkiisa qalbiga dishay waxyaabaha kale compartmentka ka kooban malignancy wax ka mid ah with the whole treatment where the risk outweigh benefits inaad qabato hawsha treatmentiga marka uu riskigu ka badan yahay benefitska tusaalahaan markuu ka badan yahay marka riskiga badan benefitku marka uu baaray waayo full care waxa la idhaahdaa waxa maalayacniga waxba aan tarayn maalayacni care-ka adeega aad u qabanaysa maalayacniga waxba aan tarayn tusaalahaan do not prolong suffering terminal illness qofku wuxuu qaatay dawo ayaad siisay dawo dheer do not prolong suffering in terminal illness waxaad doonaysaa inuu ku bogsado doonaysaa laakiin wax risala male tusaalahaan kale qofka waxaa siisay afkaad ka siisay oxygen ama mechanical ventilation baad siisay laakiin hobka ama rajada ka qabtaa waa rajo aan qofku aanu maxay
recovery kusoo sameynaya ama ku bogsanaya taasoo kale ayay iska daa waayo high risk intervention ama high risk intervention waxa weeyaan inuu qofku patientkii tusaale ahaan oo kale ayaa rejecting procedure with poor success rate marka qofku waa inuu diidaa hadduu diido tusaale ahaan oo kale procedureka qofku isagoo og inaanu lagu guuleysanayno wax reeda lahayn qofkaasi waa tusaale ahaan ama diido ka tagba imika waxa dhacda qof baa siinaysaa qofka waxaad ogtahay inaan daweynin ha siinin iska dah ka fogow ethicska haddii adigoo og tusaale ahaan kansarkii baa maraya end stage of cancer wuxuu maraya kansarka halkii ugu dambeysay buu maraya haddaad ku wado dawo siiso qaaliyo adiguna aprofit fahanto ethigii baa ka hor timi caafimaadka marka waa iska ilaalinaysaa tusaale aggressive chemotherapy-ga tusaale ahaan chemotherapy-ga la siiyo dadka kansarka qaba isagoo stagekii ugu dambeeyay ku jira waxba uu tari mayso qofka waxa kaaga filan adigoo palliative ama palliative care isticmaala ama in qofka aan pain-kuna aad ka goyso informed revision inuu qofku informed revision diido respect the patient marka qofka patientka waa ixtiraamana decisionkiisa uu ku diidayo treatmentka haddii xataa if risk in the high haddii riskigu xataa sareeyo waynu isagaynu ixtiraamayno tusaale wuxuu diiday rejecting invitations for the gangrene uu diiday in lugta laga jaro tusaalahaan in qofka lug gangrene laga jaro uu diiday qofka waxaan ku ixtiraamay respect laakiin maxaan samayn karnaa support qofka waan gaargarayn karaynaa education baan u dhigi karaynaa si uu qofkani markaa maxay adigu aad u taageerto qalbigiisa laakiin kuma cabisi kartid prevent medical errors through the careful practice markaanu shaqada ku jirno inaynu ka hortagno medical errorska dhibaatooyinka dhaca khaladaadka caafimaadka dhexdiisa taga waa inaynu careful samayno taxadir inaynu samayno maxaan samayn karnaa saddex qodob system safeguard systemka ayaa in hagaya ama system bayna hagaya systemkaas muxuu leeyahay use checklist wax ah sax procedure-ka oo samaysa sax procedure-ka oo samaysa sax si ay u kala horeeyaan electronic record bayna electronic ahaan ku samayn karnaa si aynaan u khaldin tusaale ahaan oo kale waraaqaha sida caadiga ah meel xeer sheegaya iyo meel sheegaysa waraaqa inuu qofka dhakhtarkii ku qoro fartiisa qalqaloocanayso hal qof way isla fahmayaan meel ay ku qoranto ma jirto dunidu waxay u guurtay waxa la yiraahdo electronic records hadduu khaldamo qofka patientka waa for benefit itigay ka horjeeda imika intaa meel kasta kula doob ethicalka ayay ka horjeeda ama medical ethicska ayay ka horjeeda inuu qofku bad handwriting sameeyo ama qofka dhakhtarkii wax walwalaaqo deedna uu qofka kale u dhiibo waayo wuxuu doonayay inuu farmasiyiisa ama meeshiisa ugu xidhnaado bas waa benefit taas kaas kale waa damage check protocols waxyaabaha damage check inaynu meesha ka saarno sida surgical time out-ka inuu xilliga qofku galiyo nidaamyadeeda oo dhan transparent in qofku yeesho marka wax kasta transparent hadduu khalad dhaco disclosing errors permit and implementing corrective measurement hadduu wax khaldamo soo bandhig waxa kala samayn karta implement corrective measurement wixii khaldamay si aanu dib u dhicin wixii khaldamay soo bandhig denihiikari wixii laga saxay haddii lagu dhaho la iskuma daro labadan sidaa u sax continue learning samee inaad wax barato staying updated mar walba noqo qof updated si aad waxaaga u yarayso reducing mistakeska khaladaadkaaga yeesho tusaalaha mis diagnosiska aad samaynayso maalin kasta waxyaabaha wax ka baro haddii kale continue learning ay sameeyidana waxa dhacaysa in maxay way practical application maxaynu imika samayn karnaa tusaale yar baan ku soo qaato waxa weeyaan maxaynu markaynu yaraynayno riskiga iyo tusaale ahaan ay dabaqayno xeerkan aynu leenahay malevolence-ga ama dharan harm qofkan ha dhaawicin ama ha dhib ha u geysan maxaynu samayn karnaa in treatment decision markaynu markaad go'aan gaarayso waxaad base garaynaysaa maskaxda tusaale waxaad oranaysaa avoiding overproduction waxay ka fogaanaysaa inaad dadka qofkan dawo badan u qorto way maxaa samayn kartaa waxa dhibaato harm iyo ethical action baa halka ku yaala ma garanaysaa haddaad samayso prescription opioids for chronic pain risk addiction waxa tusaale kale waxaad qof siisay chronic pain leh tusaale qof cancer qaba ama ZA ama neoplasm qaba ayaynu u qornay opioids dawooyinka xanuun biyeesha ah wuxuu leeyahay marka isagoo chronic pain buu leeyahay laakiin risk waa maxay addiction ula qabsanaya qofkii ula qabsanaya way ama xanuun kale buu leeyahay ethical actionku maxay leedahay markaad ethicska joogto muxuu leeyahay
qofkan non addictive alternative explore non addictive alternative dawooyin kale ugu bedelo oo aan qofku la qabsan tusaale physical therapy waxa la yiraahdaa physical therapy waxay yareeyaan xanuunada example labaad baan qaadanaa surgical risk assessment surgical assessment waxa weeyaan tusaale qof baynu surgical ku sameeynaa risk assessment baynu qaadan way marka qof baa dhibaatadu waa maxay waa failure early patient may not be surviving invasive surgery qof weeni kama badbaadi karo inta badan surgery-ga kama badbaadi karo waxa laga yaabaa inuu dib u keento marka qofka patientka maxaynu ka sameyn karnaa inaynu sameyno optionka waxaynu palliative care palliative care waxa weeye anti-pain iyo waxyaabaha lagu daweeyo ama si physical therapy lagu daweeyo ama conservative management inaan ku sameyno qofkan ilaalino oo qofka maxaynu ku ilaalinaa symptom treatment inaan sameyno calaamadu yeeshaba diifu ka daweey madax waxaan madaxa ka daweey intaas inaan system treatment inaan sameyno inta halkaynu ka qali lahayn qofka waxyaabaha kale ee aynu qaadano waxa ka mid ah tusaale sidaynu applications ka u dabaqno oo yara dabaqanahay in research tusaale experimental drugs with severe side effects qof baa research sameynaya waa lagu ixtiraamaa qofka marka research haduu sameynayo qofkaasi drug buu doonayaa inuu eego side effects-geega marka ethical action waa maxay inuu ensure gareeyo rigorous trial phases-ka ay marayso dawadani inuu hubiyo phases-ka ay marayso maxaa caqabad ka mid haduu caqabad ka mid sidoo kalena waxa la ixtiraamay xeerkeeni koowaad autonomy-ga waa informed consent waa inaa ogolaasho qofka weydiisata haddii kale waxa lagu qaaday TCK civiliska lowgii sharciga waayahay qodobada kale ay qaadana waxa ka mid challenge and conflict ee caqabadaha iyo dhibaatooyinka ka yimaada waxa ka mid caqabadaha double effect action with the both good or bad outcomes tusaalahan kale waxyaabaha actions ka kamid double effect waxa laba qof oo ku wada dhaco labana actions with both good and bad outcomes inuu labada isagoo qofku kala qaadanayo wanaag iyo xumaan ka iman karta wax tusaalahan kale morphinisku relieving pain but surprising respiration morphinisku waxbay inoo tarama painkay ay daweeyaan laakiin maxay keenaan in respiration ka khalkhal geliyaan marka dhibaato iyo wanaag way leeyihiin Soomaan morphinisku marka wadawada opioidska ku jirta waliba waa strong opioidska ku jirta justification waa maxay waa waxaan benefit meesha ku jirta laakiin harm is not means to the goal dhibaatadeena maaha dhibaato ma jeedno goolkeenu laakiin waxaan u jeednaa benefit faa'iido inaan ka helno dawadaas marka justification ka cadeynteena waa taa marka wax weeyaan macnaheedu waxa qodobkani damel check sameyn tusaale damelka ha qaadan damel effect yaani ku dhicin qofka tusaale hal midun ha ku dhaco resource limitation waxa ka mid in resource waxa la yiraahdaa limitations ka wixii la wada hayo marka tusaale weyn ka fogaata rotational care to the aforeham يعني وار كات سالهان وكلايا إن أن دبته وجو إمام قفقت سالهان وكلايا trained ICU أما intensive care unit كبير during pandemic إن القفقة كفوجيسو أما كسرته حيلة أي تيران دبتوين كبندemics كأما حنمض دلعان هذا القفقة كسي هيسو وين rotation care سميسا وين ماشي ترى هذا قلادة كلايا سواء كشا قلادة كلانا عامل كلجيسا هذيك لو كاقا قفقة ماشي كتيرة qofkii meesha ku jira uu ka qaadaya xanuunadan dambe markaas uu qofkii halkii ku eelanaya culture difference waxa kamid ah qoysaska qaarkood some families waxay qaataan dawooyin aan waxba u tarayn riski harming marka iyagu waxay qaadanayaan dhibaato qaadanayaan tusaalahan kale waxa koonayaan CPR ka kuwad CPR ka continuous CPR astio waxa laga oranayaa yani systemka CPR noogu wad marka waa culture-ka iyo waxyaabaha iyagu aaminsan yihiin inta badan qodobka kale ee ku jira waxa kamid in qofkan how to uphold non-violence sideen markaa u sameyn karnaa inaynu dabaqno xeerkan risk assessment samee risk assessment waxa benefit ka riskiga inuu leeyahay alternative marka qaarkood inay faa'iido lahayn waxaas assess garee error report ka hadii dhibaato aad aragtana report garee oo cultural mistakes ka hadii jiraan la discuss garee si ay waxani prevent recurrent inaad uga hortagto wax soo noqda patient monitoring ku sameeyo qofka patient ka monitor kare oo waxa ka eegtaa watch tragic harms in dhibaato qofkan ay ku dhici karto ama dhibaato uu sababay shaqadaadu ay sababtay tusaalahan ka hisba acquired infectionska iyo tusaalahan qofku inuu sariirta tusaalahan dabada ka gasho kalaaya
ama qofku tusaale ahaan inuu ka qaado cisbitaalka qofku muxuu ahaayey pneumonia-daas oo ay sababto in 48 saacadood qofku wixii ka badan ama 78 saacadood ka badan hadduu joogo cisbitaalka. Bedsores-ka waxaa la yidhahdaa inaad qofka patient-ka ku yaala meesha inaad ku dayso inuu meeluun u seexdo, deedna waxaa dhacaysa meeshii inuu nabara ku yeesho, tusaale ahaan barida, cagaha. Markaa qofka patient-ka waxaa la sameeyaa waa loo bedbedelaa, dhinacyada loo bedelaa, haddii kale nabara aad arkaysaa isagoo dabada ka soo baxeen, dhinacyadan kale finan ka soo baxeen. Marka waxyaabaha aad iska ilaalinayso waxaa ka mid ah inaad ku dayso hal meel qofka uu seexdo, waayo xididaa xidhmaya deedna meeshii dead buu noqonayaa ama necrosis buu noqonayaa, deedna waxaa dhacaysa qofkii inuu dhibaato u keeno, dhibaato aynaan sugayn. Marka aad iyo aad baa mahadsantihiin, maanta intaasuu ku dan yahay, waxaan jecelahay inaan wax ka badan intaasi baadho insha Allahu tacaala.